نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد الحمد لله إلهي بقى مهله إن سو gaarsiiyay maqaamkan dad fara badan oo kala hore inala qayb qaatay adduunkan maanta way ka tageen xaqiiqadii meeshaan u soconay bay tageen allah inagu samay maanta inaan ka wada tashanno dadka walaalaheena bimacnaa goomoon sidii aynu u gargaari lahayn inaan ka wada tashanno allah ina soo gaarsiiyay baa mahad aad u leh mar labaad xafiiskan oo xafiiska ugu roon anu maartay mar walba diinta dhaqdhaqaaqeeda iyo dadka masaakiinta dhaqdhaqaaqeeda labadaba waa xafiiska maartay aan aad ugu mahadinayno lafdhabar waa xagga maartay masaajid sidii xagga khayraadka aad baan horta idinku mahadinaynaa aad baad mahadsantihiin nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacilihi weeyaan dadka haddaad adigu wax tusto qof kasta oo wixii aad tustay wax ka qabtay ajrigiisa qayb baad leedahay oo wixii la siiyo in laguma adigan lagu siinayaa aad baad horta u mahadsantihiin dadaalana kadlaha maaragtay dhexdiisa unbuu maaragtay orodka dhexdiisa unbuu kaduuna ku jira haddaan idhaahno maanta waa busaarade habaynaan hadlin kuwii dee goomoonaa way sii baktiyayaan ilaahay baa bimacaa ku shaqa leh waxba maaragtay bixinta laakiin innaga waxaa inala jira inaynu dadaal bixinno uun dadka rabadaankii uu soo beenaya bishii khayrka badnay ay ku soo socoto waxay ku afuraan inaynu moogtahay inta kartideenna abal u dhaqdhaqaaqno wax ka wax ugu weyn oo waan ducaynayna waxaan leenahay barakallahu fiikum jazakumullahu khayr wa ahsana Allahu ilaykum marka xigta qadiyadan kulleeyda qadiyadii noo soo jiri jirtay baa haydo awalba waad ka shaqeyn jirteen waa sidii rabadaanadii hore ahaan jireen ayuun bay tahay waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waanu kala qayb qaadanaynaa hadday tahay hadal iyo hadday tahay waqti iyo hadday tahay hantiba waanu kala qayb qaadanaynaa aadna waan u soo dhaweynaynaa kolley wixiina wuxuu u baahan yahay annaga laftirkeygana inaan dib isugu noqono oon tashanno oon soo nidaamsanno bal dee qaabkii ay suurtagal u noqonayso inaanu kasoo tashanno ayaa annaga laftirkeyga loo baahan yahay kolley hadalka dee guddoomiyihiina waa joogaa iyo xubnihii kale iyagan ku wareejinaya insha allah aad baan idin salaamaya ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ururka dhalinyarta ururkan gargaar samafalka waa salaamaynaa aad baad u mahadsantihiin khayr Allah siiyo waa qorshe fiican oo isku tashiya oo dee magaalo kastaba dadkeeda liita oo saakiinta inay ka warhayso waa wax islaamku ina amrayo marka waa qorshe runtii aad anigu bogay anigu oo dadka ka shaqeeyaanada ay leeyihiin ilaahay hortiisa subxaanahu wa tacaala wanaag badan marka aad baan u soo dhaweynaynaa magaaladeena kolley waad ogtihiin dee culays badan baa ina saaran oo masaajidkeena ugu horeeyo oo dee hebelo waxaad ogtahay makuu sheegaayo innagu isla ognahay intayna meesha fadhida waa xataa ramadaankii aan hadda innagu gogol la-aan ugu tukan weynay culaysyadaas waan iska ognahay haddana waxaan dee bishii khayrka inoo soo dhowaatay dadkaasina dee halkaa mar un baaban inagu isku daynaa halkaa marna dee wixii ku baaqanayaaba ha ku baaqdo wixii uun tabarahee loo dhaqaaqi karo in loo dhaqaaqo insha allahu waa lagu khasban yahay ka majlis ahaan insha allah aad baan usoo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay taasuu marnon laha insha allah wajazaakum allahu khayran waxbaa loo mahadnaqa mudan dhalinyartan gabdhaha iyo wiilasha isugu jira oo runtii muddo badan ka soo shaqeynaya hawshan afuri walaalka inay maanta noo yeedhaan oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad bay ina xasuusiyaan aad bay ugu mahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa hawsha waxaa nagu soo foolle bishii ramadaan oo runtii bil weyn ah oo iyada oo sadaqada iyo khayrku uu mar kaleba fiican yahay haddana la rabo in lasii jibaaro oo lasii saddex jibaaro bisha ramadaan marka insha allahu tacaala hawshii weliba sanado hore ka duwan tahay oo abaar baa jirta dadkii danyarta ahaa magaalada isugu yimaadeen
xoolihii way xawayaan waa gawaabsi dadkii zarc uma bixin waxa uma bixin waxa kale oo runtii iyaduna xusid mudan in xataa dadkii xataa uu xili jiray ee meelaha loogu maqnaayo laftooda inay dhibaato badan sheeganayaan marka insha allahu tacaala si ilaahay nagu naxariisto oo dal iyo dibadba ilaahay risqiga inoogu furo oo wixii culus alla inaga qaado waa inaan hawsha insha allahu tacaala gacmaha isqabsanno dal iyo dibadba oo hawsha masaakiinta aan heli karin maanta wax ku afuraan waa inaan ka qayb qaadana haddii ilaahay yidhaahdo insha allahu tacaala sida culimadu yidhaahdeen dee ka culim ahaana wixii annaga tabartanada ahee aanu qaban karro diyaar bananahay inaan garabkiina noqonno oo maciina noqonno insha allahu tacaala arrinsanayna shay khayriya oo wanaaga oo weliba samafal ah ilaahaasa mahadle mar labaad waxaan u mahad celinayaa ururka guud ahaanba iyo gaar ahaan mas-uuliyiintiisa waqtiga dheer barnaamijkan soo waday aan ka daalin isku dayay u guntaday in maaragta bulshada inteeda tabarta daran ay anfacaan waxaan leeyahay dhalinyaradaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin gabdhiya wiilalba waad ogtihiin oo bulshadeennu waa wax maaragtay danyar bay u badan tahay waxay isaga badan tahay dad maaragtay biyo iyo baadba u baahan biyahoo kale way u baahan yihiin baadna way u baahan yihiin marka in hadba sidii aan wax ku tari karro inaynu is abaabullo oodna abaabushaan ood magaalada abaabushaan waa arrin aad iyo aad ammaan iyo sharaf ugu leedihiin ilaahayna subxaana watacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro annaguna insha allahu tacaala wixii tallaabe ahee maaragtay nagu habboon waan ka geysanaynaa tabartayada insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa meeshaan u dhaqaaqnaba inuu ilaahay miro fiican inaga siiyo inagana dhigo kuwa bulshadooda intay nool yihiin anfaco wax tara aad iyo aad baad mahadsantihiin intaa wixii ka dambeysana waxay u baahan tahay malanaya tigniga iyo in hadda maaragtay sidii wax loo raadin lahaa hoos looga wada tashado